mabsuudnahay uguna faraxsannahay in maantay halkanna lagu soo gebagabeeyo tababarkaasoo noo socday muddo 3 cisho ah ayna iska kaashanayeen hay-adaha sidra Save Children iyo wasaaradda waxbarashada oo ahna hoosna yimaada mashruuca ECW runtii intii uu socday barnaamijkan ama tababarkani waxaa nalagu baray oo aanuna ka faa'iidnay waxyaabo badan macluumaad badan baa runtii nalagu baday ay ka mid tahay child resilience-ga ama u adkaysiga carruurta dhibaatooyinka ha ahaadeen kuwa dabiiciga ah amaba kuwa aadanuhu sababaan sida si la mid ah waxyaabahan qaadanay intii barnaamijka socday waxaa ka mid ahaa xuquuqaadka iyo waajibaadka ay carruurtu leeyihiin tacadiyada loo geysta carruurta siyaabaha loo yarayn karo loogana hortagi karo iyo runtii doorka ay ruuxoodu bulshada ku leeyihiin intaas ayaanu ku qaadanay runtii intii uu barnaamijkan socday waan u mahad celinaynaa qaybaha kala duwan ee barnaamijka qaybta ka ahaa iyo macallimiintii noo fududeynayayba awalan salaamu calaykum maanta xaggan waxaan noogu gowgoway tababar 3 bari soconayay tababarkaas oo iska kaashanayeen hay'adda sidra iyo Save Children iyo wasaaradda waxbarashada tababarkaas oo looga hadlayay badqabka carruurta iyo in adkeys u sameeyaan caqabadaha markaas soo wajahaya insha Allah anaguna markaan deegaankeena ku laabano waxaan sameyn doonaa tababarra u qabanayno carruurta iyo waalidka tababaradaas oo xaggan anagana aan ka qaadanay kadib anagana deegaankeena u gudbino